gobolka Mudug waa meel isku xirta waqooyi iyo koonfur, waa meel taariikh leh, dhaqan leh, isla markaana leh sheekooyin qarsoon oo aad u xiiso badan. Laakiin su'aasha ayaa ah, maxaa Mudug ka dhigaya gobol gaar ah? Maanta waxaan si qoto dheer u sahamin doonaa taariikhda, magaalooyinka, dhaqanka, iyo xaqiiqooyin badan oo laga yaabo inaadan hore u maqal. Ku soo dhowow kanaalka, ha iloobin like, share iyo subscribe. Gobolka Mudug wuxuu ku yaal bartamaha Soomaaliya, wuxuuna ka mid yahay gobollada ugu istaraatiijisan dalka. Waxa uu xuduud la leeyahay Nugaal waqooyi bari, Itoobiya galbeed, Galgaduud koonfur. Mudug wuxuu u kala qaybsan yahay laba maamul: Puntland waqooyi, Galmudug koonfur. Tani waxay ka dhigaysaa gobol leh xaalad gaar ah oo ka duwan gobollada kale. taariikh ahaan Mudug wuxuu ahaa meel muhiim u ah isku socodka iyo ganacsiga. Waagii hore, dadku waxay ku noolayeen xoolo dhaqasho iyo ganacsi. Waxay ahayd marin muhiim ah oo u dhexeeya xeebaha iyo gudaha dalka. Xilligii gumaysiga, qaybo ka mid ah waxaa maamulayay Talyaaniga, taasoo saamayn ku yeelatay horumarka magaalooyinka sida Gaalkacyo. Kadib burburkii dowladdii dhexe, gobolka wuxuu galay xaalado adag. Gaalkacyo waxay noqotay magaalo kala qaybsan. Si kastaba, Mudug mar walba wuxuu ahaa gobol adkaysi leh. Mudug wuxuu leeyahay dhul bannaan oo ku habboon xoolaha, deegaan qallalan oo roob yar leh, heebo qurux badan oo ku teedsan badweynta Hindiya. Cimiladu waa kulul inta badan, laakiin roobabka xilliyada qaarkood waa muhiim. Nolosha dadka waxay si weyn ugu tiirsan tahay xoolaha sida geel, ari iyo lo'. Hadda aan si faahfaahsan u eegno degmooyinka gobolka Mudug. Gaalkacyo, caasimadda gobolka, xarunta ganacsiga, magaalo laba qaybood u kala baxda. Hobyo, magaalo xeebeed, taariikh ganacsi oo dheer, deked muhiim ah. Harar Dheere, magaalo istaraatiiji ah, ku dhow xeebta, door muhiim ah ku leh amniga. Jariiban, magaalo ka tirsan Puntland, xoolo dhaqasho badan. Galdogob, ku dhow xadka Itoobiya, ganacsi xuduudeed. Degmooyinkan waxay wada sameeyaan isku dhafka nolosha Mudug, magaalo, miyiga iyo xeebta. Dadka Mudug waa dad leh dhaqan hodan ah, suugaan iyo gabayo, martisoor caan ah. Waxay caan ku yihiin geesinimo, ganacsi, adkaysi. Noloshooda waxaa saldhig u ah wada noolaansho iyo dhaqanka Soomaaliyeed. Mudug wuxuu wajahaa caqabado sida amni darro mararka qaar, kala qaybsanaan maamul, dhaqaale xaddidan. Laakiin sidoo kale waxaa jira fursado: khayraad dabiici ah, heebo ganacsi, dhalinyaro firfircoon. Xaqiiqooyin: Gaalkacyo waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu mashquulka badan bartamaha Soomaaliya. Hobyo waxay ahayd deked taariikhi ah. Mudug wuxuu yahay wadnaha isku xira Soomaaliya. Gobolka Mudug waa gobol leh taariikh, dhaqan iyo mustaqbal ifaya. Adigu maxaad ka taqaan Mudug? Ku qor komentka. Ha iloobin like, share iyo subscribe. Mahadsanid.